muddo 2 sano ayaa ciyaarta magaceeda la yiraahdo Fortnite ee shiishka iyo dhaca hubaysana ayaa ciyaaryahanada gameka isugu keentay online-ka. Hadda waa waqtigii miraha ay goosan lahaayeen si aad ula kulanto qof markii ugu horeysay koobka dunida. Abaalmarinta ciyaarta ayaa waxay gaartay heer $30 milyan. Qofka ku guuleystay waxa uu helayaa $3 milyan iyo koob. Kuwa loo doortay inay ka mid noqdaan waxaa ka mid ah British Kyle Carson oo 14 jir ah. wax badan ayay ka adag tahay sida ay dadka u malaynayaan. Ma aha oo kaliya game loo ciyaaro si madadaala, waa in aad ciyaartaa bilooyin xiriir ah maalin walba. tartamaha kale waa 15 jir lagu magacaabo Benji Fish oo ka socda Middlesex. Isaga iyo kooxdiisu waxay u soo gudbeen koox ahaan iyo shakhsi ahaanba, taasoo macnaheedu ay tahay in qof kasta uu xaqiijiyo $100,000. waxaan u malaynayaa waxoogaa inay ka duwan tahay markaan masraxa tagay, maxaa yeelay weligay hore oomaan tegin masrax weyn oo sidan oo kale ah. waxa kaliya oo aan joogay qolkayga, laakiin hadda waan isku kalsoonahay. 10 kun ayaa la filayaa inay istuudiyaha yimaadaan si ay ciyaarta u daawadaan, iyadoo malaayiin qofna ay si online ay u daawan doonaan. waqti weyn ayay u tahay taariikhda Fortnite oo ay ku dhihi karaan waa magac weyn oo isboorti. sida laga soo xigtay kuwa wax taxliiliya suuqa isboortiga internetka, waxa uu ka gudbi doonaa balaayiin dollar oo dhaqaalaha sanadkan. inkasta oo Fortnite bilaash lagu ciyaaro, Epic Game waxa uu sameeyay $100 milyan bishii oo uu ka sameynayo iibsiga gameka. maalgelinta munaasabadan oo kale waxa ay iyagu u tahay waddo cusub. yaraha kombiyuutarka ama gameka waxaa durbaba daawaday malaayiin. kan ugu caansan ee Ninja waa uu guuldaraystay in uu soo gudbo. ugu badnaan dhammaan dadka soo gudbay waa wiilal da'doodu ay ka yar tahay 16 jir. qof dumarahi kuma jirto, laakiin Ewag oo 13 jir oo dhagahala ayaa u soo dhawaatay inay soo gudubto. waxa ay doonaysaa in gabdho badan ay ciyaarta gameka ciyaaraan. sare u kaca Fortnite ee halkan kuma imaanin muran la'aan. Ben Sahari ayaa mar waxa uu ku baaqay in la mamnuuco markii aad loo qabatimay ciyaarta, laakiin ciyaaryahanada durbaba waxaa bedelay noloshooda abaalmarintii ay halkan ka heleen. qaar baa ku riyoonaya waxyaabo waaweyn.